maanta taariikhdeeda 6 bisha 11 2019 waxay maxkamadda sinaanta iyo cadaaladda xukun ku fulisay eedeysanaha koowaad fartuun xuseen cali sheekh fartuun balbalaarka iyo xasan cabdalle yuusuf xasan toob dil toogashaha waxaan ka codsanayaa nidaamka in la ilaaliyo dil toogashaha fartuun oo lagu soo eedeeyey inay dembi ka gashay fanka iyo suugaanta iyo xasan oo lagu soo eedeeyey xasan toob in uu soo saaro dadka dhibirkooda aan fadhin sidoo kale eedeysanaha saddexaad iidla yare kaasoo lagu soo eedeeyey in faladegan uusan xadi karin heesiisa hadduu dhinto sidoo kale maxkamadda waxay racfaan ka qaadatay eedeysane qamar suugaani kaasoo dembi lagu waayey furinkii ka dhex maray labada lamaane waxaa dib iskugu soo laaban doonaa racfaanta muddada بسم الله الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 8 bisha 11 2019 waxaa maxkamadda cadaaladda isinaanta la horkeenay alfanaan jigijigi eedeysana fanaan jigijigi ayaa lagu soo eedeeyey falal aad iyo aad kaga soo horjeeda wacyigelinta iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaan ciidamada garbaheega taagan Guleed Ibrahim Suleymaan iyo Amiin Axmed Haruun ka codsanaya inay fanaanka cadaaladda horkeenaan ninkaan u jeedaa alfanaan jigijigi ayaa lagu soo eedeeyay sida u jeedaa anshax darada inuu buumo gaaban oo nigis loo yaqaano kumaro laamiga iyo barakeysnaa ee khaaliga ah dharkiisa in la gato Makal Mukarrama waxaan soo eedeeyay haweenka degmada Hodan iyo gobolka Banaadir ninkaan ayaa lagu xukumay 2 sano oo xabsi dhaqan celin ah wixii racfaan iyo eheladiisa waxaan u qaban doonaa 25 bisha 11 2019 bismillah maanta ay taariikhdu tahay 10 bisha 11 2019 waxay maxkamadda sinaanta iyo cadaaladda xukun ku riday eedeysanaha koowaad eedeysane Deex Dal Nuurshe eedeysanaha labaad eedeysane Ismaaciil Xaaji iyo sidoo kale eedeysanaha saddexaad Najiib Aadan Najiib maxkamadda markii aragtay dacwadii laga soo gudbiyay falal aad iyo aad ugu soo horjeeda dhanka iyo dhaqanka falalkaas oo ah falal is cadeen ah waxay maxkamaddu ku xukuntay eedeysane Deex Dal Nuurshe in weesaqaadka uu badiyo sidoo kale eedeysane Najiib Aadan Najiib ay maxkamaddu ku xukuntay inuusan hor istaagi doonin kaamira dambe sidoo kale Ismaaciil Xaaji oo lagu eedeeyay inuu si zaa'id xadaab isku cadeeyay waxay maxkamadda xukuntay in YouTube dambe uusan isticmaalin sidoo kale dekedda Muqdisho ayaa laga xayiray daawadii ka timaadi jirtay dalka China sidoo kale warqad lifaaqeedu yahay baqta 12 ka soo baxay dalka China ayaa sheegayso diyaanada in laga helo cudurrada kansarka بسم الله maanta ay taariikhdu tahay 14 bisha 11 2019 waxay maxkamadda sinaanta iyo cadaaladda xukun ku riday eedeysane Lii Baliil ina Faadumo Buufis iyo eedeysane Lii Caato ina warsan YouTube labadan eedeysan oo lagu soo eedeeyay inay caato xad dhaaf ah eena ka hoos maran cabirka wasaaradda caafimaadka ee dejisay oo ah 40 kiilo labadan eedeysan oo kale ah Lii Baliil inuu yahay 36 kiilo sidoo kale Lii Caato oo yahay 37 kiilo marka maxkamadda sinaanta iyo cadaaladda waxay go'aamisay in Lii Caato oo guursado fanaanada caanka ah fartuun balbalaarka nidaamka la toosiyo sidoo kale eedeysane Lii Baliil ayaa lagu eedeeyay sidoo inuu guursado maamo Faranko oo ku nool Australia waxay maxkamadda ka codsanaysaa maamo Faranko iyo fartuun balbalaarka inaysan ku xujeenin labadan xidig lacag iyo dahab iyo maalba akhyaarta kooder waa maasitiin maadaama shirkan isku imaateen maanta waxa ka wada hadleynaa wax qabadka ee jareerta leedahay laamiyash yaa dhiso guriyaash yaa dhiso elboorka yaa dhise dekada yaa dhise yaa ka shaqeeyo isbitaalada yaa dhiso waaye yaa lagu daaweeyaa niyo waaye hadaa saan ma wax lagu qabanayna mar walba hora naga tago lagu kala wadiye لا maanta ay taariikhdu tahay 18 bisha 11 2019 waxay maxkamadda sinaanta iyo cadaaladda xukun ku fulinaysaa dambiile Cabdi Dhaanto ina Faadumo Warsan Cilmi oo maxkamadda ku fulinayso xukun dil ah eedeysanahan oo lagu soo eedeeyay inuu isticmaalay daawada loo yaqaano Jandani eedeysanahan oo isticmaalay 5 mar maalintii waxay maxkamadda qoonsatay in Cabdi Dhaanto lagu fuliyo xukun dil ah sidoo kale waxay maxkamadda Ambaliyo u diraysaa abtigiis oo lagu yaqaano Sardey Liibaan Sardey oo isku xilqaamay inuu toogto eedeysanahan iyo sidoo kale adeerkiis oo loo yaqaan Cabdalle James oo isku soo xilqaamay inuu toogto maxkamadda oo ah
cadaalad iyo sinaanta waxay qof kasta oo Soomaaliya ugu bogaadinaysaa ciddii ka gashay dambi in maxkamadda la hor keeni doono waxaan bilaawanaynaa toogashadeena haddeertaan xariig la siikay laba xariig la Diriis Cabdi gaashaan la sare Badriye Cusmaan hadduu dhintay maxaanata danteen ma noo wadaa والذنبي كجلن علن كان محاول ودول كويدي ما كعرر كلام إنا لله وإنا إليه راجعون هذا بالله ما أنت أي تاريخ لابد بس اللي بيتمنى لو كن سيالتون وحي محكمة السنانتي عدالة دعوة كرنا سيكي أولوسو إيه إنه حاضر أما أو توجستو مرتدى إليه إندرس العبدي تذكر السيكي أي أبدا لي لو عرر أو كدورتي إنه قال هيس أنا فنكي سوغان تبرالي كأهن هيساسو كلا فلق مع المدينة دين يسرير تكور كذا سيكي أيا أبقى مسؤولة وحنا كدورتي عرورتي سكوريس كذا إنه يوتيوب وحنا لو جرن كوك مشغوله دريس العبدي أيا أميت دنت جود كشقة رياكشن كبا تذكر المحكمة السنانتي عدالة وحكوا حكومة سيكي إنه كسور جي يوتيوب كيسا محكمة السنانتي عدالة مرك إلا أو كان ناخذ نيم مسؤولة أو لجور الجناية محكمة وينو حرنتها بس تارد سيكي محكمة سيدا لا سعتان قيبت الدجولة ده وإذن كنتي أو لو ترجمايو قلب آد وهر سرير لا والله لابتوب محكمة وحين كعسنا سألنا فلوس ساقوف في خلط قوة فانكنا ولا محكمة هنا محكمة وحرنتها بسم الله ما أنت أي تاريخ وتلاباتني سيد بيشكو يتوناد لو كن سجالتون وحي محكمة السنان يا عدالته دعوة العقابات لو سو إيدي نستاحو إنه يسيد عصب حسين نستاحو إنه هو شيء سدح عروس أيو كل شيء عروس كوات سيكي عروس كلابات دريس العبدي يا عروس سدحات شينو علي نستاحو أي وحلاقة حسنا يا إن جانس وبنيسو قبلها داديا أو كوردونكا يكو قرابيض ولو بريان أو زحمة بلارن كجرت السوشيال ميديا قبلها يقرابيض sidoo kale nasteexo ayaa guurkeeda lagu soo eeday inuu yahay guur aana sharciga iyo diinta islaamka barkeega taalin waxay maxkamadda ka codsanaysaa nasteexo inay guurkeeda ka dhigto 10,000 ka yar qodobka 24 bata ayaa dacwad ciqaabeedka iskugu soo laaban doona maxkamaddana way noo xiran tahay maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanayaa kiiska fartuun balbalaarka oo ay ku xukunka dilka ah waxaan ka codsanayaa maxkamadda sharafta leh inay ka qafiifiso dilkaas sababtoo ah fartuun fanka maanta ma u galin inay dadka ugu qosliso isla markaana dadka ay ugu maadaaliso fartuun fanka waxa ay u gashay inay nafsadeeda ay ku maareyso fartuun waa gabar garoob ah waxay rabtaa inay nolosheeda ay ka soo saarato fanka maxkamadda sharafta leh mudana garsoore waxa ka codsanayaa xukunka dilka ee lagu fuliyo fartuun in loo qafiifiyo isla markaana aad go'aan ka gaartiin insha Allah أمر محكمة شرفت له كيس كان قانا يكي قاري دونتا محكمتنا وينو حرنتاي ونيو يانتاني واليابيا نيو شيد نيو مقالة نيو ووري وربقي لنا جواك ورا شيد سيناي وراح سان معقول ما نيو أنا كان قابل على وقت أنا دي جدا وستور راي واللي كان معكو داعي وصح بياك سبنا سبنيو ايه بيا يدا كانوا بيتا يودي عند بيرو عيالك حافظه اسكو تور لا انا بلاك لا ايستي وانا كو فاهم ما يعرف الى شكلان سوق شم سومالي وكعناي وريك ما كعويس انا كو فاهم هاي وسوك ما انا فاهم داف والله كل لاتي لبدا لا سامات اسمي سي مركاني هذا مرة اسمه لا بيح لها صع وإنه كان أنا أسكت داينا هذيك بعد لا داينا ماشي سيل سكوت تورن بسم الله هذا كتب حواي أمريكا وقت اللي قدام بيسي صداه وهذا يا مال ما نشيد كن برفض قتال معلك تقول سو جوا حريف حق ما وقرا الميتود جوا عندنا واحد ويلكي وأكبر يا إيكالمي أهلا وسهلا نعرض كل أساس أنا بقولن هاي لا إيكالمي إلهي كبخايتين هذه ما كوديش ونكال صحا ونكال هذا اليوم هذه ما كود نعاوس عرضي أنا عرض ايوه حاجه توك سميه مسحوق بعد الله مش على ابو شنو لا وبرفض كمان يا طوف أنا في الاسكن